shirkadihii isgaarsiinta anaga waxa ay noo yihiin partners aan kala shaqeynayno wixii connectivity ah saka horeysaan Somaliland organization iska yar weeyay marka loo fiirsho in terms of resources laakiin waxyaabaha ay damacsan tahay inay qabato oo aan rajeynayna inay waqti heli doontaan boorarkaas waxyaabaha qaarkood la soo qabtay iyo waxaan iigsanayno ay ka muuqdaan la arki doontaan marka loo fiirsho 4 qof organization ay ka shaqeynayaan iyo waxa noo qabsoomay waa Ilaahay mahadiis waa mashruuc la isku xiraayo internetkii jaamacadaha adduunka oo dhan marka jaamacadaha sida la socotiin waa ka duwan yihiin internetka ay haystaan internetyada commercialka ah oo waxa jira mashaariic waaweyn oo adduunka ka socda waxa jira wadan walba oo adduunka kamid ah hay'adaha waxbarashada waxay leeyihiin wax la yiraahdo NREN oo u taagan National Research and Education Network waxbarashada iyo cilmi baarista xiriirka ka dhaxeeyo waa inaan fahno muhiim waaye waxbarasho quman ma jiraysa haddii uusan cilmi baaris jirin oo waxbarashada aysan qaabaysnayn aan si fiican loo taxliilinin oo ma arkaysa maxsuulaadka soo baxayo aan markaas looga faa'iideynin dalka waxaan u soconay waxay tahay dhammaan in la isku xiro jaamacadihii dalka oo dhan marka in aan kala soo qayb galno daafurkaas runtii anaga waxay noo tahay farxad waana maalin taariikhi ah oo ah in dalkii markii ugu horeysay loo sameeyo shabakad isku xirta jaamacadihii dalka oo dhan